بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وكلن كني تبني سديدات كل مدي بشهر رمضان إن شاء الله تعالى كلن كانوا حين كجور رمضان زكاة الفطر أحكام تيدا يوحقف كمسلم كان لوجا باهية والزكاة لقى قاضي أما لقى بحية ضدك oo dadka naftooda ku waajibta halka zakada kale xooluhu ay tahay zakaatul amwaal ayadu waa zakada marka bisha Ramadaan laga afurayo la bixiyo waxay ku waajibaysaa qof kasta oo muslim ah noocu doona ha ahaado rag ha ahaado dumar ha ahaado ha yaraado ha weynaado adoon ha ahaado xor ha ahaado ayay ku waajibtaa zakada zakaatul fitriga loo yaqaano isla markaana qof helaya habeenka ciidka iyo maalinka ciidka wuxuu cuni lahaa biilan lahaa qof helaya ayaa laga doonayaa waxay ka dhigan tahay markaa shardi ma qofku inuu hanti badan haysto waxa uu shardiya habeenka bisha Ramadaan ay dhamaatay ciidda habeenka ciidka iyo maalinka ciidka wixii uu cuni lahaa asaga iyo dadka uu biilo oo caruurtiisa iyo reerkiisa intaas wixii ay biilan lahaayeen hadii uu helayo wixii ka dheeraada inuu zakaatu fidriga ku bixiyo laga rabaa marka waxa dheeraadka ka ahi ama ha wada gaadhaan oo intii loogu tala galay ha noqdaan ama ha ka yaraadaan mar hadii wax uu dheeraad ka yihiin waxa dheeraadka inuu bixiyo laga doonaya xikmadda loo jideeyay oo loo sharciyeeyo la inoogu waajibiyay zakaatu fitriga xukunkeeduna waa farad rasuulka faral yeelay alayhi salaatu wasalaam farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam zakaat alfitri xadiidkii ibn umar saxiixa ahaa muslim iyo qeyrkii wariyeen rasuulku wuxuu faral yeelay zakaatu fitriga ayuu rasuulku waajib yeelay alayhi salaatu wasalaam xikmada loo waajibiyay oo la inoogu faral yeelay nabiga sheegay alayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigu sheegay waa ducmatun وظهرة للصائم وضعمة للمساكين والله حكمة حكمة كوباد waxa weeye nabiga kaleey salaatu wasalaam qofkii soomana طaahirin bay u tahay oo waxay ka طaahirinaysaa intii aad soomanayd khaladaadkii ka dhacay iyo soonkaaga wixii ka nuqsaamay iyo maalmaha qaarkood hadaad afxuma iyo cantara baqash iyo waxaan loo baahnayn ku hadashay iyo wixii bay ka nadiifinaysaa oo ka طaahirinaysaa zakaat fidrigu taasi markaa waa xikmad oo waxay ku dhameystiraysaa soomkaaga wixii ka khaldanaa ayay ku dhameystiraysaa oo ku hagaajinaysaa faa'iidada labaad ama xikmadda labaad ee loo jideeyayna waa qucmah lil masaakiin masaakiinta la rabaa maalinka in la quudiyo oo ay farxadda ka qayb galaan oo sida dadka kaleba u farxayaan ayaguna inay helaan waxay cunaan oo maalinka ay ku raaxaystaan oo masaakiinta la isugu dardaro oo laga fujiyo baa la doonayaa maalintaas oo nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis kale wuxuu ku yiri ughnuhum an at-tawaf dhalika al-yawm oo kama qaal kaleey salaatu wasalaam maalinta waxaad ka kaafidaan masaakiinta wareegi ay wareegi lahaayeen ay u wareegi lahaayeen inay soo helaan waxay cunaan iyo waxay cabaan ka kaafiyo nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa la bixinayo iyo qadarkiisa raashinka la bixinayaay hadba meesha la joogo cuntada ugu badan ee laga cuno weeyaan gobolka iyo magaalada la joogo cuntada u qaalibka ah ugu badan ee dadka meesha jooga ay quutaan haday bariis noqoto iyo hadii ay qamandi noqoto iyo haday masagan noqoto haday wax kale noqoto hadba meesha la joogo cuntada ugu qaalibsan ee ugu badan ee la isticmaalo ayaa la bixinayaa inta la bixinaya waa intee rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu jiray saac wax la yiraahdo saacaas marka waa intee culimadu 2 kiilo iyo waxooga marka sida dadkeena inta badan sameeyaan 2 kiilo iyo bar hadii la bixiyo way ka gudaysaa waliba waxooga dheeraada ayaad ku dartay marka 2 kiilo iyo barkaas ayaa la bixin yaa mutaysanayo la siinayaa waxaa la siinayaa dadka fuqarada iyo masaakiinta dan yarta aan maaragtay waxa ay haystaan ku filnayn
ama waxba aan haysanin ayaa la siinayaa. waqtigee la bixinayaabaa u dambeeya. waxaa la bixinayaa waqtigeedu waa laba qaybood oo midna waa waqtuljawaaz midna waa waqtulwujuub, oo loola jeedo waqti ay bannaan tahay in la sii bixiyo. rabadaanba hadday bilaabato zakaatulfidriga waa la sii bixin karaa. marka qofkii rabadaan bilowgeeda bixiyey, kii rabadaan dhexdeeda bixiyey, kii aakhirka rabadaan bixiyey, waa u bannaan tahay inuu bixiyo. goormay waajib noqonaysaa? maalinka rabadaan u dambeeya marka qoraxdiisu dhacdo ee habeenkii ciidku soo galo ayay waajib noqonaysaa. waqtiga ugu fiicanna waa inuu bixiyo salaada markuu u sii socdo, salaada ciidka intuu sii bixiyo inuu markaa ciidka aadaa fiican. hadduu laakiinse hada ka gaadhsiin maysid, habeenkii wuu iska sii bixin karaa, maalmaha rabadaanta ka horreeya wuu iska sii bixin karaa. almuhim waa inuu bixiyo intaan salaada ciidka la tukanin. oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay haddii salaada ciidda ka hor la bixiyo waa zakadii oo la aqbalay weeye. haddii salaada kadib la bixiyana fadligaa yeelan mayso, waa sadaqo sadaqooyinka ka mid ah, laakiin macnaheedu maaha qofka inay ka dhacayso. haddiiba uu salaaddii kala dib dhaco waa dayn oo way dul saaran tahay, oo waxaa laga doonayaa inuu sida ugu dhaqsaha badan u qadeeyo oo u bixiya baa la doonayaa. walaalayaal, waxaynu baraarujinaynaa markaas zakaatulfidrigu qofka dembi dhaafna waa u tahay, daahirin bay u tahay, soomkiisii u dhammaystirtay u tahay, masaakiintana taageero iyo garab istaag bay u tahay. marka in lagu dadaalo insha allahu tacaala ayaa la doonayaa. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.